السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورايا isku soo noqod wanaagsan وهالkan iyo channelkeeni mahad baray ku soo dhawaada walaalayaal hello today waxaan in hayaa maanta insha Allah taala cashir aad u xiiso badan conversation ah dhalinyarada xoogaa aad bay u xiiseeyaan conversationka aad baad ugu maasantiin insha Allah aad u xiiso badan yahay marka wuxuu ku saabsan yahay wiil doonaya sida loo baran lahaa luqadda Englishka iyo saaxiibkii oo insha Allah taala wadadii uu mari lahaa ku caawinaya ku soo dhawaada walaalayaal haddii aad cusub tahay subscribe noode gambalka riix oo taabo casharada insha Allah taala waad heli doontaa cashir kasta oo soo gelina waad ka heli doontaa insha Allah taala haddii aad nala sii joogtay like tan oo taabo noo shari garee dad adiga cusub tahay lafteeda gambalka riix oo taabo insha Allah taala noo shari garee like taar waxba kama dhibo insha Allah taala aad baad u mahadsantiin dhageysi wacan conversation hello how are you hello I'm fine thank you my brother I am a student and I am beginner so that can you tell me an easy way I can learn English yes listen to me I tell you okay tell me you know, when you want to learn a language, you need to take 4 steps, such as writing, reading, listening, and speaking. Thank you for the pure idea. When did you start learning? I started 6 months ago. Now, how are you at English? Still, I'm not good at. Okay, follow the steps I told you. You will learn soon. Thank you. Okay, A and B ayaa noo daadihinaya. Insha Allah taala A ayaa wax leeyahay. Hello, marhaban. How are you? See tahay. Hello, marhaban. Waa markaad doonaysa qofka dareenkiisa inaad soo jeediso si uu isula qabsataan insha Allah taala. Marhaban. Hello, how are you? See tahay. Hello, how are you? See tahay. Hello, marhaban. I'm fine. Waan fiicanahay. Thank you. Waa mahadsantahay. Hello, marhaban. I'm fine. Waan fiicanahay. Thank you. Waa mahadsantahay. My brother walaale my waxayga way brother walaal mana walaalka my brother walaalkeeyo my brother walaale ama abowey I am ani waxaan ahay student arday and I am anigu waxaan ahay beginner below ayaan ahay so that sidaas darteed can you adi ma awoodaa tell inaad u sheegtay me aniga an easy way hab fudud easy fudayd waaye wayna waa hab ama qaab an easy way can you tell me ma ii sheegi kartaa an easy way hab fudud I can learn aan u baran kara English Ingiriiska wuxuu leeyahay am brother walaal am student arday baan ahay and I am ani waxaan ahay beginner so that sidaas darteed so that can ma awoodaa you adiga can awood weeyaan can you adi ma awoodaa tell me inaad ii sheegtaa an easy fudayd way easy an easy way hab fudud wayga macnaha hab way I can an awooda learn inaan ku barto English can you tell me an easy way ka learn English okay B ayaa la yes ha listen dhegeyso to me aniga I tell you ku sheegay listen maxaa waay listen tida marka waa silent ma sheegaysid listen elada listen ma dhis you say listen listen okay tidi waa qarsoon tahay yes ha listen to me idhegeyso me aniga I tell waan u sheegayaa you adiga aniga tell waan u sheegay listen to me I tell you idhegeyso waan ku sheegaya okay tell me ii sheeg tell u sheeg me aniga ii sheeg B ayaa yiri you know waad og tahay you adiga no kayda lama sheega waa silent no waa garasho ogaasho weeyaan you know waad garanaysaa you know waad og tahay when markii you want aad rabta when marka you want aad doonayso when marka you want aad doonayso to learn inaad barato and to learn inaad barato a language luqad you need waxaad u baahan tahay you adiga need waxaad u baahan tahay to take inaad qaado 4 steps 4 tilaabo to take inaad qaado take waa qaadid 4 steps tilaabo u baahan
you know waad ogtahay when markii you want aad doonayso want rabid ama doonid to learn inaad barato a language luqad you need waxaad u baahan tahay need baahi to take inaad qaado 4 steps afar tilaabo such as sida mana such san oo kala weeyaan as na waa sida such as marka waa phrase la isku yiraahdo sida such as sida mana sidoo kale mana san oo kale mana such as sida writing afar tilaabo lagu sheegay 4 steps ee lagu sheegay afar tilaabo la qaadi lahaa insha Allah taala such as sida writing qorida writing w lama sheegay waa silent writing qorida in wax la qoro you must write more wax badan inaad qorto ayaa loo baahan writing you have to first write mana learn writing marka hore inaad barataa waxa ay sheeg qoraalku inaad barataa writing inaad barataa kadib reading inaad samayso akhris reading inaad wax akhrido inaad wax badan macnaha waxna qorto reading writing markaad samayso qorto reading aad samayso akhrido iyo waliba listening tida waa silent la soco listening dhageysi inaad wax dhageysato qofka markuu luqadda English ku hadla dhageysato idaacadda markay maxaan ku raadad focuska oo macnaha hadba codadka macnaha idaacadaha ku hadlayo kala aad saarato qaybaha YouTube-ka casharada aad inta furata kuwa English ku hadlayo kala dhageysato raadiyaha aad saarato all of this macnaha inaad wax dhageysato how to speak English you must listen from other people macnaha dad kale aad ka dhageystaa la qof kale ku hadlaya inaad ka dhageysato listening macalinkaada aad qof kale aad inaad ka dhageysato ayaa and iyo speaking ku hadlid baa la speaking ana qarash marka already marka waxaad samaysay writing waad qortay qoraalkaad baratay ka bacdi reading ayaad baratay ka bacdi listening dhageysiga dhagta u dhig qofka ku hadlaya si fiican baad u dhigin ereygaas ugu hadlaya and speaking waad ku hadli marka bacdi adaa isku day inaad ku hadasho markaad qortay oo maxaan ku radaa ii sheeg aad dhageysatay amana aad akhrisay aad dhageysatay and speaking iyo waliba aad ku hadasho markaas afarta tilaabo waa the more you write the more you read and the more you read the more you read the more you listen the more you listen the more you speak of irsaas la yiraahdaa marka insha Allah taala marka wax badan qor wax badan akhri wax badan dhageyso and wax badan hadal marka writing reading listening and iyo speaking kaas laga baahan marka okay ayuu thank you waa mahadsantahay for the pure idea fikirka nadiifka aad ku mahadsantahay pure maxay nadiif dahaarsan macnaha nadiifka idea waa fikirkii oo macnaha pure fikradaas nadiifka ah ku mahadsantahay thank you for the pure idea fikirka nadiifka ku mahadsantahay when gorma did you adiga start at below the learning waxbarashada when gorma did you adiga start at below the start learning waxbarashada gorma when did you start learning waxbarashada gorma bilowday I started waxaan bilaabay started na past way faltaga way ed lagu daray I started midka hore when did you la markaa dibta waxay ku tusaysaa faltagay when gorma did you adiga dibtaas marka waa faltagay hadda joogi dhow baa leela when gorma did you adiga start at bilowday way inay mar hore waxa ku cadeynaysa marka dibta baa ku cadeynaysa dib waa faltagay wax hore lagu weydiinaya when did you start learning gormashada gorad bilowday waxbarashada I started waxaan bilowday dibta marka meesha ka baxdo marka fiiri start waxa lagu daray ed lagu daray okay أول إيدي waxa u diidaysay dhirtaas u diidaysay waxa leedahay I started one bilaaway 6 months ago 6 bilood ka hor 6 months bilood ago ka hor I started one bilaaway 6 months ago 6 months bilood ago ka hor I started 6 months ago 6 bilood ka hor bilaaway bi ay wuxuu leeyahay now how are you said ku tahay at English ku tahay how are you said ku tahay at English hadda English said ku tahay macnaha ma ku hadli kartaa wuxuu yiri still really I'm not good at kuma fiicni I'm not aniga ma ihi good at banagal good at English kuma fiicni ma I'm not oo ku darsan kartaa kan I'm not good at English waa dhigta marka ku soo gaabiyay still really I am not good at kuma fiicni English kuma fiicni still I'm not good at wili kuma fiicni okay ayuu yiri follow ra the steps tilaabooyinka I told aan u sheegay you adiga told tell of us laga dhigo faltay laga markuu soo sheegay haduu adeegsan waliya aan ku sheegay tell been markii hore sheegid bay ahayd laakiin hadda waa basti wax la soo dhaafay tagta fogay noqotay maxay I told you aan ku sheegay follow ra the steps tilaabooyinka I told aan u sheegay you adiga ra you will learn waad baran doontaa soon si dhaqso leh you will doontaa mustaqbalka you will learn oo barasho waad baran doontaa markii will you will learn waad baran doontaa learn oo barasho soon si dhaqso leh soon wuxuu yiri okay agaag
follow rac the steps tillaabooyinka I told you aan ku sheegay you will learn waad baran doontaa soon sida sidaad ku baran doontaa follow the steps rac okay wuxuu yidhi thank you waa mahadsantahay thank you waa mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin thank you very much for listening